Dowladda Itoobiya waxay mar kale walaac xooggan ka muujisay ciidanka faraha badan ee loo tababarayo Soomaaliya oo maalmihii u dambeeyay askar aad u badan dalka dibadiisa loo qaadayo si ay tababar u soo qaataan isla markaana ciidankaasi ay u noqdaan kuwa keeni kara isbeddel xooggan oo dhanka amniga Soomaaliya. Itoobiya waxay sheegtay inay hesho xogo muujinaya in ciidamadaasi ay noqon doonaan kuwa lagu kaaftoomi doono askarta shisheeye ee gudaha Soomaaliya jooga. Waxaa loo tababaray in ay ciidamadaasi ku howlgalaan agabka ciidan ee dowladda Turkiga ay Soomaaliya siisay. Sidoo kalena waxaa jira wadamo fara badan oo isbahaysi ahaan u garab istaagaya Soomaaliya si looga maarmo ciidamada shisheeye ee gudaha Soomaaliya jooga. Saraakiil ka tirsan ciidanka Itoobiya ayaa waxay tilmaameen in markaan godkooda uu biyo ugu soo gelayo marka la eego howlgallada sida gaarka ah ay u fulinayeen muddooyinkii u dambeeyay ciidanka Soomaalida oo aan la socon askarta kale Afrikaanka, iyo sidoo kale in ay socdaan dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira qaabka ciidankaasi badda iyo bariga iyo hawadaba looga dhisi lahaa si ay u sameeyaan awood buuxda oo howlgallada ay ku sugi karaan amniga dalka. Ciidamada Turkiga, kuwa Masar iyo kuwa kale oo Sacuudiga ka socda oo Soomaaliya u soo socda ayaa la sheegay inay qayb weyn ka qaadanayaan howlgalladaasi lagu sugayo sida ay sheegeen ilahan. Waxaana wararka uu helayo warbaahinta Xuraasi ay tilmaamayaan in maalmihii u dambeeyay ay socdeen kulamo gaargaar ah oo u dhexeeya saraakiil isugu jirta Soomaali, Sacuudi, Masaari iyo Turki, kuwaas oo la sheegay inay ka fikirayeen qorshaha ugu fudud ee loo dabari karo ciidamada Soomaalida isla markaana ciidankaasi looga dhigi lahaa kuwa awood weyn marka la eego dhanka Geeska Afrika. Itoobiya markii xubnaha mucaaradka ee Tigray ka soo jeeda ay sheegeen in ay dib u bilaabanayaan dagaaladii iyo colaadihii ka jiray dhanka ismaamulka dhaca waqooyigaasi ayaa waxa ay keentay arrintaas in Abiy Ahmed walaac xooggan uu ka muujiyo arrimaha dhaqdhaqaaqa Geeska Afrika, gaar ahaan kobaca siyaasadeed iyo midka amni ee Soomaaliya ay ka sameynayso marka la eego dalalka xulafaysiga la Soomaaliya iyo tababarada kala duwan ciidankaas ay qaadanayaan. Ilahan ayaa dhanka kale waxay tilmaameen in maalmihii u dambeeyay ay socdeen dhaqdhaqaaqyo guud oo ay wadaan ciidanka dowladda federaalk Soomaaliya, looguna talagalay in dhaqdhaqaaqyadaasi ay ku gaaraan hadafka ugu fudud ee lagu gaari karo howlgalladaasi. Dowladda Soomaaliya ma qarin taangiyada iyo qalabka kale, iyadoona dekedda Muqdisho markii aad dul tagto aad arkaysid laba markab oo ka mid ah kuwa dagaalka oo dowladda Turkiga ay leedahay. Waxaase maanta oo Jimcaha Muqdisho soo caga dhigatay diyaarad wada hub iyo agab kale ciidan, taas oo magaalada Dooxa caasimadda dalka Qatar ka soo qaaday saraakiisha ciidanka cirka Soomaaliya iyo kuwii diyaaradaha taangiyada kaxeyn lahaa sida ay sheegeen ilo kala duwan. Ilahan inoo xog waramay ayaa tilmaamay in dowladda Qatar ay tababar u soo dhameysay saraakiishii ciidanka ee dalkaas lagu tababaray, iyadoona maalmihii u dambeeyay ay socdeen dhaqdhaqaaqyo guud oo lagu soo dhaweynayo xubnahaasi. Waxaana diyaaradaha wadamada Soomaaliya cilaaqaadka kala dhexeeya ee ah kuwa militariga qalabkooda u qaada maalmihii u dambeeyay ay si joogto ah ay magaalada Muqdisho garoonka Aadan Cadde u soo caga dhiganayeen. Dowladda federaalk Soomaaliya oo in muddo qarinaysa marka la eego tababarka ciidamada dibadda qaaska loo qaadayo hubka iyo sidoo kale waxyaabaha kale ayaa markaan banaanka soo dhigatay, iyadoona dhowaan la arkaya gaadiid wada taangiyada casriga ee Soomaaliya la siiyey. Waxaa sidoo kale jira diyaaradaha F-16 iyo diyaarado kale oo Turkiga uu leeyahay oo kol hore bandhigyo kala duwan oo ka dhaca Muqdisho lagu soo bandhigay. Itoobiya ayaa markaan waxay qorsheynaysaa laba daran mid dooro, waa inay dib u laqdaa mowqifkeedii ku aadan raadinta damaceedii badda ee dhanka Soomaaliya, walow Abiy Ahmed uu dhowaan kala hadlay madaxweynaha Turkiga Erdogan, balse arrintaasi uu ka gaabsaday in uu jawaab saxan ka siiyo maadaama Soomaaliya cilaaqaadka wanaagsan uu kala dhexeeyo Turkiga. Eritreana xushmad gaar u hayo madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan, sidaas awgeedna Itoobiya uu kala dhexeeyo cilaaqaad ganacsi iyo mid kale, taasoo keentay in ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu walaac xooggan uu ka muujiyo arrimaha Geeska Afrika ka socda xilligan. Dowladaha kala duwan ee tababaraya ciidamada iyo saraakiisha ayaa meesha ka saaraya ku tiirsanaanta ciidanka shisheeye, waana midda keentay in la dedejiyo go'aanka bisha Oktoobar 2026 lagu xiri doono xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya, iyadoona xafiiskaas uu ahaa midka inta badan sida gaarka u soo bandhigi jiray baahiyaha loo qabo ciidamada shisheeye ee jooga gudaha Soomaaliya.
Uganda ayaa kol hore ku dhawaaqday in askarteeda ay kala baxayso Soomaaliya. Sidoo kale Burundi ayaa sidoo kale sheegtay Kenyana caga badan kuma taagna. Etoobiyase waxay markaa doonaysaa inay dejiso qorshe kale oo ay ku sii joogi karto Soomaaliya, walow warar soo baxay ay tilmaamayaan in ciidamada Itoobiya ay gudaha Soomaaliya isaga bixi doonaan dhowaan marka la keeno ciidanka tababarka Soomaaliya ugu maqan dalalka dibadiisa, taasoo keentay in awood ahaan Soomaaliya mar kale ay ku soo laabatay saaxada dhanka militariga. Wixii warar iyo dhacdooyin ka soo kordha baahinteena tan xigta warbaahinta Xuraansi ku daaw.